ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Kheyre oo ay weheliyaan xildhibaano deegaan doorashadoodu ay tahay Caabudwaaq iyo wasiiro ayaa gudaha Caabudwaaq ee gobolka Galgaduud kulan kula qaatay qaar ka mid ah dhalinyarada ku nool magaalada. dhalinyaradan oo kulanka su'aalo ku weydiinaya ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa sidoo kale u jeediyay talooyin iyo tusaalooyin ka qayb qaadanaya horumarka iyo hagaajinta mustaqbalka dalka. ra-iisul wasaare Xasan Cali Kheyre ayaa dhalinyarada ugu bishaareeyay in dawladdu ay ku shaqaynayso aragtida muwaadiniinteeda Soomaaliyeed oo ay dhalinyaradu qaybta ugu weyn yihiin, wuxuuna ku dhiirigeliyay dhalinyaradu inay soo abaabulaan oo ay ka qayb qaataan isbedelka dalka ka jira, isla markaana qofaan iyagu ahayn dalku isbedel laga sugin. ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa maalmihii u dambeeyay ku sugnaa magaalada Cadaado, halkaas uu kulamo kula qaatay xildhibaanada waxgaradka iyo madaxda Galmudug oo ay ka wada hadleen doorashada Galmudug sidii ay u qabsoomi lahayd. ilaa iyo hadda madaxda Galmudug iyo ra-iisul wasaare Xasan Cali Kheyre iskuma afgaran halka lagu qabanayo doorashada Galmudug. madaxweyne Axmed Ducaale Geelle Xaaf ayaa horay warqad u soo saaray ku sheegay in doorashada Galmudug ay ka dhacayso magaalada Cadaado, halka xukuumadda federaalka Soomaaliya wasaaradda arrimaha gudaha warqad ay soo saartay iyadan ku sheegtay in doorashadu ay ka dhacayso magaalada Dhuusamareeb oo ah caasimadda maamulka Galmudug.